shir muddo 3 maalmood oo socday culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca geeska Afrika magaalada Makino Road ee dalka Kenya gaar ahaan xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista shirkan ayaa la soo gabagabeeyay oo looga hadlayay khatarta ay leedahay Shiicadu iyo si dadka looga wacyi gelin lahaa culimada shirkan ka qayb gashay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka Nairobi, Garissa, Wajir, Mandera, Tana River iyo xeryaha Dadaab iyo Kakuma iyo sidoo kale dalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Tanzania qaar kamid ah culimada shirka ka qayb gashay ayaa ka hadlay khatarta ay leedahay Shiicadu man shaka fi kufri haula yani Shiica nimanka Shiicada ninkii gaalnimadooda shakiyo fama kaafir masaba galaha Shiica wakeeda kadibtoono hada kadib ilmaheena aan isaga dirno waa si gaar ah Ahlus Sunnah wal Jamaaca Shiica oo hadra sida mashaayikha inoo sheegeenba tashayuca ama Shiicadu waa shay aad iyo aad oo xumaan badan madhab aad u liito oo aad maaragtay diin ku rooyahay culimada islaamka ay u dhaleeceeyeen ilaa kitaabka wuxuu dhigayaa nimankaas in i'tiqaadka Ahlus Sunnah wal Jamaaca waxay ku khilaafsan yihiin ay tahay akthar min 30 mas'ala oo masaa'ishaas culimada markii ay baxthiyeen ay yiraahdeen waa mukhrij 'an al-millah qofka hadduu aamino Shiicadaas diinta buu ka baxayaa ma aha bidcinimo ma aha mukafir weeyaan wal billah sidoo kalena waxa warmurtiye laga soo saaray shirka waxaana warbaahinta u akhriyay Maxamuud Cabdi Timakala Jeex culimada Ahlus Sunnah wal Jamaaca waxay isku waafaqeen in Shiicada badankood madhabkoodu gaalnimo yahay inta soo hartana tahay bidco aad u xun xaqana ka fog Ahlus Sunnah wal Jamaaca bari ka yihiin isla markaasna waxay uga digayaan ummadaha islaamka ah fidnada bidcada Shiicada ah laba isku meel looga soo wada jeesto ka digista iyo ka hortagga faafidda bidcooyinka Shiicada iyo Wahabiyada saddex in culimada Ahlus Sunnah wal Jamaaca bilowdo oo dadka laga wacyi gelinayo fidnada bidcooyinka Wahabiyada iyo Shiicada Sara Ali Jaamac Home Cable TV Nairobi